بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب. أحبتي في الله، waxaanu ku soo jirnay kitaabkeenu suwaru min xayaati saxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin. waxaanu soo gaarnay darsiga 92 ee kitaabkeenna. waxaanu dhexda kaga jirnay saxaabigii la dhihi jiray usayd bnu lxudayr. waxaa inoogu dambeysay isagoo towxiidka qaatay. fandama wuu ku soo biiray oo wuu u soo dumay fii daalika alyowmi maalinkaasi dhexdiisa ilaa kataa'ib alislaami islaamka jamaacooyinkiisa waxaa ku soo biiray faarisun nin dagaalyahan oo min fursaani alcarabi carab kuweedii dagaalyahaniinta ka mid ah. faarisun nin farasla ah oo faras fuulidda ku fiican oo min fursaani alcarabi carab kuweedii fardafuulka ah ka mid ah. waxaana laga wadaa nin geesi oo dagaalyahan ah laga wadaa, kuwaasoo almarmuuqiina farta lagu fiiqayey, kuwa dadka ka sarreeya oo saa loo eegayo ayuu ka mid ahaa ninkani. wasayidun boqor ayaa ku soo biiray oo min saadaati al awsi aws boqoradeedii ka mid ah, kuwaasoo almacduudiina farakutiriska ahaa. kaana wuxuu ahaa yulaqibuhu miday ugu naaneysaan qowmuhu tolkiisa bilkaamili kii dhammaystirnaabay ugu naaneysi jireen. ninkan usayd bnu lxudayr la yidhaahdo, tolkii gaalada aha ee uu ka dhashay nin dhammaystiran bay u yaqiineen. ilaahay baa dhammaystiran subxaanahu wa tacaala, magac saxe ma ahan. sababtay ugu bixiyeenna waxaa weye lirajaaxati caqlihi, caqligiis ayaa zaa'id ahaa. caqli zaa'id ah ayuu ahaayo dadka cuqalada ah ninka ugu caqli badan buu ahaa iyaga. iyo wa nabaalati aslihi, asalkiisa oo wanaagsan darteed bay ugu magac dareen kaamil. dadka uu ka dhashay meeshuu ka soo jeedo asal wanaagsan ah. waliannahu ninka kani malaka sayfa waalqalam, wuxuu hantay seefta iyo qalimka. waxaana laga wadaa seeftana wuu hantayoo wuu lahaayo wuu ku dagaalami jiray. qalimkana nin wax qoruu ahaa. labadaas wuu isku darsaday. naadir bayna ahayd labadaas in la isku darsado. id kaana ninkani wuxuu ahaa bilidaafati markii lasii raaciyo lagu daro ilaa furuusiyatihi, dagaalyahanimadiisa iyo wa diqati ramyihi, toogtiisa aadka u xaadiqa ah. yacnii toogyahannimadiisa marka lagu daro labadaasi oo aynu ku soo tilmaannay, waxaa dheeri u ahaa qaari'an nin qaari'a buu ahaayo wax akhriyo, kaatiban oo wax qoro. toogyahan buu ahaayo meeshu wax shiisho ma gafi jirin. intaas waxaa dheeri u ahaa qaari'an mid wax akhriyo ahaa, kaatiban oo wax qoro. fii mujtamacin, mujtamac ayuunu ku dhex sugnaa. mujtamacaasoo nadara fiihi ayba naadir tahay dhexdiisa in laga helo man yaqra'u qof wax akhriyo, wayaktubu wax qoro. qof wax akhriyo oo wax qoro mujtamac in laga dhex helaba ay naadir tahay ayuu isagu ku dhex jiray, isagoo waxna qorayo waxna akhrinayo. waqad kaana wuxuu ahaaday islaamuhu ninkan islaamnimadkiisu sababan sabab bay u noqotay fii islaami sacd bni mucaad. sacd bnu mucaadkii isaga soo diray ee nimankaasi naga kala cayri yiri, sababkiisuu kusoo islaamayba. waa ugaaskii cidda guud wey ninkan sacd bnu mucaad. nimankan ree aws la yidhaahdo boqorkoodii guud weeye. kanna isagana boqoradiibuu ka mid yahi oo kan hoos tegay. wuxuu yidhi wa kaana islaamuhumaa, labadooda islaamkoodii wuxuu noqday macan wadajirnay u islaameen sababan sabab bay u noqotay fii an tuslima inay islaamto ayay sabab u noqotay jumuucun jamaaco khafiiratun oo aada u fara badan oo min al awsi ree aws ah. dad aada u fara badan oo qabiilkay ka dhasheen ah inuu islaamo ayuu arrinka isaga aha keenay. marba haddii madaxdii ay soo islaameen, shacabku haddee way raacayaan. waa meeshii la dhihi jiray masku madaxa laga dila. gaaladu midka ugu weynba haddaad gacan ku dhigtahay inta kalena way soo raacayaan. wa an tusbixa inay ahaato almadiinatu, magaalada madiino inay noqoto ayay sabab u noqdeen labadaas nin islaamkooda. bacda daalika wixii markay islaameen ka dambeeyey muhaajaran meel loo soo hijroodo
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا مكان هاجرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أسو هجروضه إنay magaaladii madiino noqoto ayay sabab u noqotay labadaas nin islaamkooda ilaan cadowgu meesha degan ay ugu khatarsan iyaga ahaayeen iyaga iyo qabiilkoodiiba hadday soo islaameen magaalada madiina waxay isu diyaarisay noqotay meel nabigu usoo hijroon karo lagu soo dhaweyn karo isku aamini karo wamaw'ilan bay noqotay meel uu nabiga magangalo iyo waqaacidatan qaacida iyo saldhig bay noqotay magaalada madiina lidowlati lislaami islaamka dowladiisi alcudmaa ee weyneed mar haddii nimankaas boqorada iyo dadkoodiiba ay islaameen magaalada madiina waxay noqotay meel nabiga magangelye uu usoo doonto isagii dowladiisaba saldhigna ay ka dhigtaan uulica waxaa la jeclaysiiyey usayd bnu lxudayr ninka la yidhaahdo bilqur'aani qur'aankii baa la jeclaysiiyey mundu laga bilaabo samicahu uu qur'aanka ka barto uu ka maqlay min muscab ibni cumayr muscab ibnu cumayr markii uu qur-aanka ka bartay laga bilaabo wuxuu jeclaaday qur-aankii uu aada u jeclaaday walaca almuxibi kan jeceelkiisoo kaluu qur-aanka jeclaaday bixabiibihi kii uu jeclaa siduu u jecel yahay qofkuu jecel yahay sida uu u jecel yahay si ka daran buu u jeclaaday usayd bnu xudayr qur-aanka kariimka ah walaca almuxibi kan jeceelkiisu bixabiibihi qofka xabiibkiisa ahoo uu jecel yahay siduu u jecel yahay si lamida buu u jeclaaday qur-aanka kariimka ninkani wa aqbala wuuna qaabilay usayd calayhi qur-aankii buu qaabilay iqbaala addaami'i qof ooman qaabilitaankiisoo kale cala almawridi alcadbi biyo macaan makaan oroorkooda siduu qofka ooman u jeclaado si ka daran buu qur-aanku u jeclaaday qof aada u ooman haddii meel biyo macaan ay ku jiraan u yimaado seebuu arooraya oo qaabku u cabaya aad buu u xiisaynaya u jecelya soomaan sidaas si lamiduu qur-aanka ninkan u jeclaaday cala almawridi makaanu oroorkii siduu u qaabilo qofka ooman alcadbi ee macaanka ahaa cadbiga waa biyaha aad ku macaan filyowmi maalin dhexdiisana uga oroorayo maalinkaasoo alqaa'idi aada u kulul maalin aada u kulul qof ooman oo biyo macaan helay siduu ugu oroorayo si lamid ah ayuu ninkan qur-aanka ugu oomay oo uu ugu orooray wajacalahu wuxuuna ka yeelay qur-aankii shuqlahu mashquulkiisa ashaaqila ee mashquuliyo oo uu ku mashquulo wax alla wuxuu ku mashquulayo qur-aanku ka dhigay wajacalahu qur-aanki wuxuu ka yeeshay shuqlahu shaqadiisa ashaaqila ee mashquuliso waxa uu ku mashquulo qur-aan kariimku ka dhigtay fa kaana wuxuu ahaa ninkan usayd laa yuraa midaan la arag ilaa mujaahidan isagoo dagaalamayo ghaasiyan duulahayo fii sabiilillaahi diinta eebbe koryeelideeda ku dagaalamayo ku duulayo unbaa la arkayey oo mise caakifan isagoo ku dulneg yatluu isagoo akhrinayo ama yatluu xaal uu akhrinayo kitaab allah imaa inaad aragto isagoo dagaalamayo iyo imaa inaad aragto isagoo dul fadhiyo kitaabka ilaahay uu akhrinayo unbaad arkaysa caakifka waa nagaasho iyo dul fariisasho kitaabka ilaahay uu dul fariisanayo masjidka uu ku ictikaafayo yatluu isagoo akhrinayo kitaab allah wa kaana ninkani wuxuu ahaa rakhiima sawti codkiisa miduu jilicsan yahay mubiina nutqi dhawaaqiisana uu cad yahay dhawaaq fiican buu ku dhawaaqaya xuruufta mushriqa aladaa'i gudashadiisa qaabkuu qur-aanka u gudanaya markuu akhrinayana miday ifaysay ahayd tatiibu lahu waxaa u wanaagsanaanaysay ninkani qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa ayaa u wanaagsanaanaysay oo qur-aanku inuu akhriyay mar walba wuu jeclaa wuu ku udugsanayay akhara maa tatiibu akhrinta markay tiib u noqonayso waxay ahayd marka ay ugu badan tahay idaa sakana alleylu habeenka markuu xasilo tatiibu lahu waxaa wanaag u noqonaysay oo u macaanaanaysay qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa akhara maa marka ugu badan oo tatiibu ay wanaag u noqonayso u tiib noqonayso akhrintu idaa goorti way sakana alleylu habeenka u xasilo wanaamat alcuyuunu indhahana ay saxdaan wasafat ilnufuusu
nufuustana ay saafi noqoto oo qof walbaba uu saaxdo xilligaas intuu soo kaco dadka ay hurdayaan oo qur-aanka akhrin jiray salaatuleylku ku tukan jiray qur-aanka wa kaana saxaabatu waxay ahaayeen alkiraamu ee wanaagsanaa yataxayanuuna mid la beegto awqaata qiraa'atihi xilliga uu qur-aanka akhriyo ayay la fiirsan jireen si ay u dhegeystaan yataxayanuuna waxay ka waqti yeelan jireen ay gaadi jireen xilliga qur-aanku u akhriyo wayatasaabaquuna waxay u tartamayeen ilaa samaaci tilaawatihi usayd akhrinta uu qur-aanka akhrinayo dhegeysigeedii bay u tartami jireen fayaa sacda man qof dhuroobidiisa iyo liibaanidiisu mankaasoo yutaaxu lahu jaanis iyo fursad loo siiyey an yasmaca alqur'aana qur-aanka inuu ka maqlo minhu usayd uu ka maqlo radban xaal uu yahay mid qoyan qur-aanku tariyan xaal uu yahay mid cusub kamaa sidii unsila loogu soo dejiyey calaa muxamedin sala allahu caleyh wasalam waxaa aada u dhuroobay oo aada iyo aada u guuleystay qofka fursad u helo qur-aankaas macaanka badan ee cusub ee qoyan ee ninkan uu akhrinayo sidii nabiga loogu soo dejiyey isagoo ah ninka jaanis u hela ninkaasaa guuleystay buu yihi sheekh waqad istacdaba way macaansadeen ahlu samaa'i samada ehelkeeda bitilaawatihi tilaawada iyo qur-aanka uu akhrinayay ku macaansadeen waqad istacdaba way macaansadeen ahlu samaa'i samada ehelkeeda waa malaa'igtii tilaawatahu akhrinta uu ninkan qur-aanka akhrinayay ku macaansadeen kama istacdabaha ahlul ardi sida qiraa'adiisaba ugu macaansadeen dadka dhulka ku noolaa sida aynu soo marnay dadka dhulka ku nool aad bay qur-aankiisa ugu macaansanayeen oo u dhegeysanayeen sidaas si lamid ahay malaa'igta hawada jirtana u dhegeysanayeen oo ugu macaansanayeen fa fii jawfi leylatin habeen gudihiisa oo min allayaali habeenada ka mid ah kaana wuxuu ahaa usayd bnu lxudayr saxaabiga la yidhaahdo jaalisan mid fadhiyo fii marbadihi ardaagiisii buu fadhiyey gamaastiisii buu fadhiyey marbadku waa meesha guriga hortiisa gamaasna waa la yidhaahdaa ardaana waa la yidhaahdaa wabnuhu wiilkiisu yaxyaa la dhihi jirayna naa'imun wuxuu jiifay ilaa jaanibihi dhinaciisu u hurdayey wa farasuhu faraskiisu allatii faraskaasoo acaddaha uu u diyaarsaday liljihaadi fii sabiiliillaah diinta eebbe inuu ugu dagaalamana murtabitatun mid ku xiran bay ahayd hayra baciidin canhu meelaan odayga ka dheereen meelaan odaygii wiilkaba ka dheereen ayuu faraskan ugu xirnaa wa kaana alleylu habeenka wuxuu ahaa waadican mid tegey oo horay u batay saajiyan ee xasilay walleyli idaa saja wuu xasilay mugdi oo gudcuruhu noqday waa akhiruleyl horay buu u batay wa adiimu samaa'i samada iyo cirka laftiisana raa'iqan mid waxay ahayd ifayso saafiyan oo saafi ah xilligaas cirkana wuu ifayey wax daruurahoo saarnaa ma jirin raa'iqan iyo saafiyan waa isku macnoon waa cir diiran oo saafi ah buu ahaa daruuro aan lahayn wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahoodana tarmuqu waxay soo fiirinaysay al arda dhulkay soo fiirinaysay ardadii alhaajicata hurdaysay alhaajica waxaa laga wadaa kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun dhulka wuu xasilay ilaan dadka markay xasilaan waa markay hurdaan soo maha dhulku waa hurdayey oo dhul degan oo wax buuqay aan lahaynoo wuxuu ahaa aada u wanaagsan bixanaanin jaceyl ayay ku soo fiirinaysay xidigadaasi dhulka iyo wacadfin turid iyo naxariis xilliguu tilmaamaya sidai hawada u deganeed wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahooda tarmuqu waxay ku dheegaagaysay yacnii ramaqu waxaa weye markaad sheega indhaha ku gubtown xidigahana wax daruur oo ka cila malan oo dhulkay toos usoo fiirinayan baa laga wada al arda dhulkay indhaha ku meegaagayeen ama ay ku dheegaagayeen ardadii alhaajicata xasilneed ee hurdaysay bixanaanin jeceel ayay usoo fiirinayeen xidigadaasi iyo wacadfin dhimrin iyo turid fataaqat waxaa hilowday fataaqat way hilowday nafsu usayd bni lxudayr lian yucadira inuu ku cadareeyo uu ku udgiyo haadihi alajwaa'a jawiyadan oo tanna annadiyata ee qoyan bituyuubi alqur'aani qur'aanka cadaradiisa inuu ku qurxiyo ayuu jeclaaday maadaamuu jawiga degan yahay
dadkin ay hurdayaan xilli wanaagsan oo xilli dambaana la joogo aroor hore ay tahay wuxuu jeclaystay inuu qur-aanku ku udgiyo dhulka kani fandalaqa wuu soo kacay yatlu isagoo akhrinayo bisawtihi codkiisa alrakhiimi jilicsana codkii alxanuuna kalgacelka lahaa wuu soo kacay oo qur-aan buu bilaabay baa laga wadaa wuxuuna bilaabay suuradatan alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiina aladiina yu'minuuna bilghaybi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة بالله ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك واسكد المرينة ذلك كاسي الكتاب القرآن كأ لا ريب وحشك فيه دحدي سكما السجن هدى هنون ويقرآنك للمتقين كو الله سبحانه وتعالى كبقي أي هنون يا قرآنك هدى هاديا حال يمد هنونين يا قرآنك للمتقين كو إلهي كعبصدي kuwa ilaahay ka cabsaday buu qur-aanka sii tilmaamay oo 6 tilmaamood baa la siiyey dadka ilaahay ka cabsadana lagu yaqaano 6 tilmaamood waxa weeye alladina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaah wa mimma razaqnaahum yunfiquun darsiga dambe insha Allah ta'ala bay noo noqon doontaa hada wa billahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.